asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa islaamay saaxiibada ku xiran baraheena bulshada youtube-keena facebooka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida daafeeda ka joogtaan. waa xasan oo idinkala soo hadlaya waddanka Poland mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada. maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo xaaladda waddanka nagu dhegan ee Ukraine iyo dadkii kasoo baxayay iyo dadkii soo gaaray waddankan Poland iyo jawiga noloshooda. ardaydii kasoo qaxday waddanka Ukraine ee soo gaartay waddankan Poland iyo si guud xaaladda waxaan rabaa inaan idin dul maro insha allahu bikariim. hor dagaalka wuu socdaa weli oo wadankii dagaalka uu ka socdaa. waddanka waxaa ku sugan dad aada u fara badan oo waddanka gudihiisa weli jira oo dadka Soomaaliya sa wada faaruqin. dadka waddanka ku jira waxaa kamid a dadka waddanka u dhashay ajaanib kale oo Soomaaliya ku jirto. annaga waxaa inaga qusayda dadka Soomaaliyeed waxaa meesha ku sugan dad badan oo Soomaaliya oo ku sugan magaalooyin kala duwan ee waddanka Ukraine. dadkaas waxay isugu jiraan dad famiila ah, arday wax baranaysay ee qabti ku dhacday, dad ay ku adkaatay inay kasoo baxaan iyo dad ganacsi ku haysta meesha oo ganacsi ku lahaa meesha ay u suurtoobi weysay inay dadkii hore kasoo baxa ku biiraan. sida maqalkan waa dhammaan dadka meesha ku sugan way nabad qabaan, wax dhibahu kama jiraan, cabsi iyo derbiya ku gambaday ku jiraan. ilaahay waxaan ugu rajeynaynaa inuu ilaahay haddii ay baxayaan si nabad uga soo banaan bixiyo, haddii ay meesha joogayaan ilaahay ku nabad yeelo, meel ugu nabadgelaya ilaahay unbaa garanaya, annaga waxba kama ogina. inta sidaan u gudbo dadka gudaha ku sugan waxaa jira dad badan oo soo baxay welina xuduudaha aan soo dhaafin. dadkaas waxaa kamid a dad badan oo Soomaaliyeed oo kasoo baxay waddanka Ukraine, xuduudda Ukraine ilaa iyo xuduudda Poland ku jira weli aan kasoo gudbin xuduudda waddanka Poland oon waddanka gudaha usoo gelin. dadkaas waa dad soo baxay. safarka meesha loo soo gelaayo iyo dadka soo baxayana horey uga soo hadalna muuqaladeenii hore. waa safar dhib badan, dad lugeynaayo waxaa kasii lugtaas iyo dadka socda ka dhib badan. dadku marka xuduudaha soo gaaraan faylka waxay kasoo bilaabayaan 10 kilomitr. for example adoo ceelgaabda joogo kilomitr 4 lambar 4 iyo halkaas kasoo gala fayl ilaa iyo tradisha ka gala fayl waaye 13 kilomitr 14 kilomitr 15 kilomitr oo fayl dadku taagan yihiin. qofka ugu horeeya markuu galo waxaa laga yaabaa dadka meesha taagan markaas qofka ugu dambeeya inuu beri subax ama beri duhuradii oo kale u gaaro meesha oo immigrationka afkiisa ah. dadkii Soomaaliya oo dad iska jilacsan ilaahay waxaan ugu rajeynaynaa horta dhammaantood inuu ilaahay meel kasoo joogo ku nabad yeelo, qaasaan dadka xuduudda soo marayna inuu ilaahay soo nabad gudbiyo. intaas ilaahay ugu rajeynaynaa. waxaa jiro dad fara badan oo dhalinyaro iyo waayeel isugu jira oo soo gaaray waddanka Poland. dadkaas waxaa gudbay qeybtooda ugu badneed oo waddamadaas kale usoo gudbay, laakiin dadka waddanka gudihiisa ku sugan runaantii waxaa loo soo dhaweeyey si sharaf iyo gobonimo leh. mahadoo ka gaarto dad badan oo Soomaaliya oo dhalinyaro iyo guddiga jaaliyadda iyo foundation for Somalia iyo foundationo kale oo garabsanayo ayaa dadkaas garab istaagay si fiican oo milga iyo sharaf leh oo la soo dhaweeyey inta ogaalkeeya. waxaa jira dad dhalinyaro ah oo dadka ugu horreeyay oo waddankan soo gaara ka mid ahaa oo ilaa hadda hoteelo degan oo lacag la-aan ku degan, lacag la-aan ku cunteeya. dadkaas meesha degan ee ardayda ah waxaa loo sameeyey xarun ay tegi karaan fiisahooda haddii uu ka dhacay in ay ka cusboonaysiisan karaan. sababtoo ah saa hore uga soo hadalnay dadka waxaa la siinaya fiisa 15 cisho ah inay uga baxaan ama ku galaan waddanka gudihiisa. 15 cisho markay kaa dhamaato waddankii ma lihid adigu. waddanka umaada socon oo dee awalba meelaa saldhig ka dhiganayso ama iskuul ugu socotay ama jaamacad ugu socotay ama deegaan ugu socotay ma ahaan ee waddanku waa waddan aad si kadisa ku timaaday. 15 cisho fiisaha lagu siiyey. qofkii dee inta soo lugeynaya 15 cisho dhowr cisho kamid a hurdo iyo daal uu ku qaatay. marka dhalinyaradii meesha soo gaartay calay taxal waxaa loo sameeyey xarun ay tegi karaan oo fiisaha kasteesha uga samaysan karaan ka dheereysan karaan. midda kaloo jirta xitaa fiisaha markii loo dheereeyo qofka ardayga ah waxaa loo baneeyey waddo ah inuu jaamacaddiisi apply garayn karo, codsigiisa jaamacadda gudbisan karo, si waxbarashadiisi oo meesha uga sii wato. qofkii meesha yimid ee ardayga ahaa ee waddanka Ukraine kasoo baxay halkaasna wax ka baranayay muddo alla muddada doonta la ekaatinta wax baranayay. wuxuu samayn karaa qofku markaas jaanisada kale usii banaan qofka waxay yihiin ardayga ah ee waddanka Poland jaanis u hela inuu wax ka barto. markuu jaamacadda galo warqadda admissionka la soo ku xareysanaya kaar deganaanshaha oo waddanka inuu degan yahay ah.
kaarka deganaanshaha waxuu ku isticmaalaya baasboor soomaaligiisa baasboor u ahaan doono. kaarkaas markii uu qaato jaamacaddiisu galayaa, jaamacadda intuu dhiganayo gelin shaqaha ku darsanaya qofkii oo uu shaqeynaya. For example markay ku dhiman tahay 1 sano oo kale jaamacaddii ama 1 sano iyo baroo kaleeto wax ku darsane qayb shaqa ah. shaqadii markii aad gashid oo aad shaqaysid wadankii ka shaqaysid aad taxi payer noqoto oo canshuur bixiye noqoto, caafimaadkaaga soo baxayo oo wax soo baxayo in adiga iskabto, adiga aad noqoto qof wadankii fahmay hore u socdo. jaamacaddii markii kuu dhamaato marka 2 wado ku hortaalo inaad tahay qof shaqeynayo oo kaar shaqo kasii dhiganayo kaarka deganaanshihiisa oo awal jaamacadda ku haystay, jecel inuu u bedesho kaar deganaansho ah oo shaqo, qof shaqaale ah oo wadanka shaqeynayo, canshuur bixiyo, sidaas daraadeed la siiyo kaar deganaansho ah oo wadanka uu ku deganaado ilaa iyo intuu shaqeynayo. shaqadii marka ma lahan xad xiran oo waqti ay ku eg tahay ma jiro, waqti ay kaa dhamaanayso ma jirto haddii adiga aadan iska soo xirin. marka kaarkaas wuxuu noqon karaa 3 sano, wuxuu noqon karaa 2 sano. kaarka 3 sano markii lagu siiyo 3 sano aad haysato, 3 sano aad shaqeydo oo canshuur bixiye noqoto, wax dambiyana intaada gelin, waa lagu bedelayaa kaarkii oo dib u xareynaya. markuu 3 sano ka dhamaato kaar waxaa lagu siinaa 10 sano ah. kaarkaas 10 sano maalintii lagu siiyo waxaa tahay qof wadanka degan oo wadanka shaqaysan karo, intuu doono ku noolaan karo. 2 sano markaad kaarkaas 10 sano haysato, hadda xagga luuqadda iska dhistay markii hore istiiska xareysan karto insha Allah. mar walba marka waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Poland, jaamacadda Ukraine qabi uga soo tagay ee halkan nasiib u helay inay ka dhamaystirtaan, inaysan degdegin, kaarkooda deganaanshaha xareystaan ee jaamacadda gelin shaqa ay jaamacaddu isku darsadaan. hadhow marka jaamacaddu gabowsi maraysana ay shaqo caadi raadsadaan. qaybta u dambeeyda waxaa lagu bixiyaa qaab online ah, ay raadsadaan markaas shaqo, shaqeeyaan, canshuur bixiyaal noqdaan. kaarkaas markii uu ka dhaco jaamacadda si ay u helaan shirkad ay u shaqeynayeen oo u xareysa kaarka deganaanshaha ee wadanka ay ku deganaanayeen 3 sano. 3 kadib qofkaas isaga ishagaya 3 sano markuu dhamaato waad xareyne 10 sano qaadane. 10 sano markii ku dhamaato 2 sano hore 10 sano 2 sano u horeyda muhiim ah inaad haysato kaar 10 sano ah. markii ku dhamaato waxaa xareysanaysaa haddii aad qof luuqadii iyo iska soo dhisay tahay, canshuur bixinayay, wax dambiyana aan gelin, waxaad xaq u leedahay inaad xareysato citizen-kaaga. si walbaba dadka Soomaaliyeed ee ka soo baxay wadanka Ukraine ee soo gaaray wadankan Poland waxay ku sugan yihiin xaalad aad u wanaagsan oo guul ah. waxyaabo badan iska saameynaya jira dadka wadanka soo galay. waxyaabaha ugu badan ee saameynaya waxaa kamid ah oo ay ilaa iyo hadda ay adag tahay inay degdeg ula qabsadaan waa xagga luuqadda, la macaamilka bulshada, socodkii iyo isu safarkii magaalooyinka dhexdooda ahaa. intaas way adkaanayaan qofka markuu cusub yahay. meel kasta ku cusub tahana waa sidaas. haddaa gobol Soomaaliya ka tagto gobol kale tagto sidaa tahay, meel aadan aqoonna way adag tahay inaad ku dhex orado. laakiin mar walba waxaan rajeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo baxday wadanka Ukraine inuu wadankan Poland u noqon doono wadankii ay noloshooda ku horumari lahaayeen, ku dhisi lahaayeen, kuna qurxi lahaayeen. intaas daa u gudbo dhanka dhalinyarada ardayda ahayd ee wadankaas soo galay iyo xaaladooda. waxaan rabaa dib inaan ugu laabto dadka wadanka Ukraine gudihiisa ku sugan. meesha joogo waa dad aad u badan, markaas isugu jiro dad waayeel iyo dhalinyaro iyo arday intaba isugu jira. waxaan codsanayaa dadkaas in loo duceeyo oo meel walba aad joogto dadka soo duceedaan ilaahay inuu meeshooda ku nabad yeelo, kii soo baxana ilaahay uu nabad keeno biidnillah. maanta waxaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo muuqaalkeenii aan ugu talagalnay maanta in uga faallano wixii noo kala dambeeyay 48 saac ee lasoo dhaafay insha Allah. fadlan hadduu kusoo gaaro muuqaalku muuqaalka noo share garay, like noo saar. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow channelka subscribe noo saar. haddii aad hore noola joogto mahadsanid. dhammaantiin waxaan ka codsanayaa in la isku duubnaado. wadamadan aan joogna xaaladoodu waa wadamo iska adkaanaysaa. si guud iyo si gaar ah Soomaalida waxaan ka codsanayaa in la isku duubnaado, la iska warhayo, la is xiriiriyo.
qofba qofka dariskiisa ah oo ka warhayo insha allah bikrim aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu